haddaan nahay golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kulligeen oo isku duuban waxaa lagu jiraa waqti ayna hor yaalaan howlo aad muhiim u ah oo ah sharciga hadda doorashooyinka oo laga hadlayo kulligeen waxaan ognahay sheekooyinka ama wararka suuqyada socda inaysan ku salaysnayn xuquuq qaanuuni ah laakiin ay iska yihiin iska hadallo fadhi ku dirir ah marka laga soo bilaabo waxyaabaha lagu hadaaqo oo ah aan iska dayno wixii lagu soo lugay iyo 4.5 iyo duubabkii waa wax jiro waa ognahay aan iska dayno 20kii sane dadkii kuraasta fadhiyay ayaa iska jecel inay saas ku fadhiyaan kuwa kalena oo ay u mari weysay 20kaas sano waxay rabaan qaab kale oo diga rogasho ah armay idinku badisaa ayay isleeyihiin waa ognahay ergo iyo maamul goboleed iyo cadaadis hore in ay soo marnay waan ognahay inaan isku dayayno in qof iyo cod ay doorashadu ahaato haddana waxaan ognahay in qof iyo cod aysan dhici karin waxaan ognahay in ay jirto muddo kororsi waxyaabaha laga hadlaayo haddana aan afka ka dhowrno oo ma dhihi karno muddadaan kororsanaynaa waxaan ognahay waxyaabihii hore loo soo arkay iyo isbeddeladii dhacay qaabkii ay ahaayeen sidoo kale waxaan ognahay waxa haddana hor yaalla iyo qaabka ay u dhici doonaan oo aan isku dayayno doorashooyinka hadda yaallo iyo in mishiino loo keensaday iyo codad ku shubasho ah in ay dhici doonaan waxyaabaha aan ku hadaaqayno waxyaabaha aan isku dayayno in xisbiyo lagu galaayo iyadoo aysan tirakoob iyo diiwaangelin jirin lana leeyahay waddamo badan ayaan iyadoon lees tirakoobin doorashadu ka dhacdaa iyadoo aan marna la fiirinaynin qodobka 61aad ee dastuurka qaranka oo matalaadda deegaanka si cad ani ii quseeyay kan 64aad ee dastuurkana wuxuu quseeyaa marka ay qof waliba xubin waliba ka soo qaadato deegaan doorashadeeda oo aan iskugu nimaadno golahan waxaan ognahay 2000 ilaa 2020kii oo aan hadda uga baxayno qaabka uu yahay waxyaabaha aan raadinayno iyo cid walba oo halkan joogta wali marka ugu horeysa aan looga hadlin golaha wakiilada dalka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sharcigan horey uma dhicin in looga hadlo sharcigii doorashada dalka waxaana soo ifbaxaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo la rabay in markii sharcigan la ansixiyo kadib qaabka doorashada dalka ay u dhacayso inuu ka shaqeeyo uu isagaba hadda baarlamaanka si hor ordaayo oo uu leeyahay xisbiyadii inta la shiriyo la leeyahay awoodiinni baa la qaadanaya awoodda maanta waxaa iska leh labada aqal ee sharcigan dhex yaalla guddiga iyo guddoomiyihiisana waxaan u sheegaynaa in waqtigooda uu ka horeeyo dhammaashihiisa waqtiga golahan dhammaanayo marka waa ka fiirsan doonaa sidii loogu aamini doonaba in ay guddigii madaxa bannaanaa ee doorashada qaranka noqdaan marba hadday sifo qaanuuni ah aysan ku shaqaynayn intaas markaan ka gudbo mudana guddoomiye waxaa la leeyahay 4.5 afka lama soo marin karo liajli adariska ama beelaha shanaad dad baa ku ceeshay dad kaliya kuma ceeshine horta way badan tahay minority-ga ama kuwa laga tiri badan yahay 31 cidii u malaysa 153 golahan ku fadhinaa waayo waa isbargaranaynaa hawiyaha yaryarka ah
daaroodka yaryarka ah digli miriflaha yaryarka ah dirta yaryarka ah annaga that's why sababtaas darteeda mararka qaarkood gudoomiye muudde hogaamiyaha siyaasadda beesha shanaad hogaamiyaha aqlabiyadda u dhahaa iskama dhaho 151 yaryarka ku jira waxaa intaas ii raaca labada aqal waa ognahay haddana qodobka 72 in aqalka sare ee beelahaasi ay hal qof ku leeyihiin iyadoo ay welina maqan tahay kuraasti kale ee shanta ahayd taasoo meesha ka saartay matalaad isu dheelitirantii in la helo waxaan rabaa mudanayaal inaad si fiican ii dhegaysataan sanad kaliya noo haray muddada xilhaynteenna waxaa inoo wada yaalla ama ay ahayd in ay dowladdani qabato 3 sano oo la soo dhaafay guud ahaan innagoo isku duuban in aan soo qabanno howlo cayiman maanta waxaa inoo beegan suuskaas inoo beegan 3 sano waxna la ka rabay oo aanan soo qabanin si wada jir ah ayaa jira waxaan wada ogsoonnahay oo aan wada xusuusannaa inaan marnay dhaar ah sida danta dalka dadka iyo diinta ay ku jirto annagoo ku dhaarannay magaca ilaahay dan kamalihi waxaan sharciga iyo qaanuunka ahayn inaan ku hadaaqo ama aan meel dhigo sababtaasaan ugu soo celceliyaa ilaahu ka marqaati noqo inaan sheegay waayo kutubaa lay marshay moogtahay been u leexamaa runtana ka leexamaa axdi qarameed ayaa lagu soo dhisay 2000 ee carta si fiican aan isu fahamno axdi qarameedkii lagu soo dhisay dowladdaasi waxay ahayd dowlad ku meel gaar ah TNG kaliya baarlamaanka iyo xukuumaddana waa kala saartay 2004 baarlamaankii imbigaati ayaa lagu soo dhisay haddana dowlad federaal ku meel gaar nidaamkaas cusub ee federaalka dalka qaatay ilaa ay hadda dad badan ayaa waxay leeyihiin federaalba looma baahna jid looga baxo oo qaanuun ana ma jiro waa la soo qaatay waana lagu dhaartay marka arta waxaa jooga gudoomiye ku-xigeenka labaada fadhiyo libaano badanna waa fadhiyaan oo carta ku jiray jaartarkii carta waxaa la socday lifaaq 12 qodob ah oo la rabay dowladdaasi inay wax ka qabato 12kaas qodob way qaban weysay muddadii markay ka dhammaatay jaartarkii imbigaati oo dowladda federaalka ahaa waxaa la socday lifaaq 8 qodob ah oo la rabay mandate-ka dowladdaas in 8daas qodob ay wax ka qabato ka soo tag 2009kii isla waqtigii iyadoo ay jirto ayaa baarlamaanka tiradiisa kaliya la biiriyay waxna lagama qaban 8dii qodob ee mandate-ka ahaa oo dowladdu lahayd si wada jir in wax looga qabto 2009kii dowladdii la soo dhisay muddo kordhin ayaa dhacday dadku u maleeyay muddo kordhin inay hadda koow tahay ama la raadinayo way soo dhacday waxayna soo dhacday 2009 madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed markii la soo doortay 8 bilood oo uu waxaan u maleynaa kusima madaxweyne waxaa ahaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur inuu golaha fadhiyo Sheekh Aadan Maxamed Nuur 8 bilood ayaa mandate-kii Cabdullaahi Yuusuf ka dhinnaa Sheekh Shariif dowladdiisana waxay ahayd 2 sano iyo 8 bilood markii ay dhammaatay 1 sano oo muddo kordhinaa la sameeyey waxaana lagu sameeyey Kampala Accord iyadoo la raacayo 12 qodob wax laga qaban waayo 8 qodob oo wax laga qaban waayo Kampala Accordna waxaa ku caddaa heshiiskii Kampala 4 qodob
oo la yiri 1 2 3 waa in wax looga qabtaa ku darso caalamku waxay dhaheen ku meel gaar iyo charter dambe oo dawladda lagu caawinayo malaha NF SNF taasaa keentay 2017 dastuurkaas ku meel gaarka ah in la soo yiraahdo ku doorta markii ugu horeysay nala dhex keenayna dastuurkii oo guddoonka la doortay qodobkii waxa la laalay baarlamaanka inuu madaxweynaha kala diri karo waxa kale oo laalay duruufta jirto awgeed in hal aqal horta waxa sharci ah wixii dadku ku heshiiyay sharci kale ma jiro maanta dadka yaa matala marka guddiga madax bannaan miyaa matala maya madaxweynaha jamhuuriyadda miyaa matala maya ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo golihiisa wasiirada ma matala maya golaha garsoorka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ma matala dalka waxa matala 275 plus 1 oo ah kursi madaxa ah abadiye ah 276 iyo 54 isku dar waxay isku yihiin 229 plus 1 329 plus 1 330 maanta meesha aad dalka dhigtaan baa taalo waxaan rabaa inaad si fiican hoos ugu fiirisaan waligeen waxaan ku soo hadaaqnay baarlamaankii shanaad 10kii baarlamaan ee dalka soo maray kii shanaadan ka mid ahay shantii ugu dambeysay oo xiriiran ku jiray waxaan maqlaa marka muddada dhamaato waana la ka guuray baarlamaankii oo taagana laga guuray eldoreeda la aadi waa lagu soo noqon waayay arta markaan mandate ku dhamaado intay ahayd waa lagu soo noqon waayay Kampala kooda looga baxay Garowe 1 iyo 2 waa looga baxay waxa la aas-aasay leaders committee inta committee waxa looga soo baxay dawlad goboleedyo madasha hogaamiyaasha baarlamaankii oo taagana madaxweynihii ra'iisul wasaarihi iyo naga raaceen ma maanta waxaan sugaynaa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay beesha caalamka wax ku soo heshiiyaan miyaan sugaynaa maroodi xoogiisa ilaahay ka qariyaatihiin ama waxaad tihiin loo har aan wali dib dambe la isu weydiinayn maanta talada idinkay gacantiina taala waxaadna ku dhaarateen sida danta dalka iyo dadka ku jirto magaca ilaahay aadna u marteen waadna ogtiin cirkii dhulka hadii la isku dhajiyo inaanay doorasho dhicin inaan jinsiyad jirin yaa Soomaali ah inaan tirokoob jirin inaan xisbiyo sharciyeysan jirin inaan dawlad goboleedyadii sharciyadooda ka hormarin sharci aydan u sameeynin nidaamka federaalka iyo nooca la qaadanayo aydan ka hadlin waa ognahay inaan xuduudihii Soomaaliya iyo aysan noo qornayn waan ognahay inaan amni ka jirin dalka guud ahaan jamhuuriyadda loo yacade ilaa Ras Kamboni waan ognahay inaan dastuurkaas afti dadweyne uusan gelin hal cod iyo hal qof saas daraadeed ma dhici karo mar hadduusan dhici karin wixii dalka u dhacaya waa inaad u samaysaan fiiri dawladii imbigaata lagu soo dhisay charterkay ku qornayd ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi 2 sano iyo bar iskama dhicin wuxuu ku dhacay charterka waxa ku qornaa nidaamka federaalka inuu dalka uga hergeliyo xukuumaddaas 2 sano iyo bar hadday ka hergelin weyso xukuumadda ku xigto ayaa 1 sano iska leh ma waxaynaan qori karin inaan dhahno dalka 5 sano ee soo socota new roadmap new accord muqdisho accord waxaan rabnaa ugu magac darno ayay noqonaysaa amniga intaas lagu sugaa federaalka intaas lagu sameeyna tirakoob intaana lagu sameeyna waxa la leeyahay adduunka qaarkiis waxa ka dhacay iyadoon tirakoob jirna doorasho ka dhacday adduunka doorashada ka dhacday miyaa la mid ah kursiga yaala Kismaayo miyaa la iska yeelayaa in Daynila ama howlwadaag lagu doorto kursiga Hirshabeelle miyaa la iska yeelayaa in Kaaraan lagu doorto rotation wax lagu dooranayo miyaa jira miyaan tagi karnaa meelihii aan ka nimid anigu 5 jeer baan Jowhar baan kursigaygu yaala 5 jeer aan tagay waxaan tagay ergadii markii la xulaayay dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaan tagay baarlamaankii markii la xulaayay
markii baarlamaanka la dooranayo gudoomiye Jawaari aan iska raacay markaas marka laga reebo 6 jeer bay ahayd 6 jeer halkaas mar uu gudoomiye Jawaari safarka gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle aan u raacay marka laga reebo diiwaan gelintii aan tagay marka ergada tagaysay aan soo fiiriyay marka aniga aan registration fee aan bixinayaan tagay iyo markaan codka doonanaay shantaba joohar waxaan maray baabuurkaasaan maray maanta miyaa joohar la aadi karaa intay jiraan kuwa kale diyaarad itaal aniga aan ku raacaba ma lihi iska dhaaf ergo iyo oday ugaas inaan raadiye waxaa la rabaa runta iyo ilkaha waa la cadeeyaa kitaabka aan marteen inaad ka dhabaysaan maanta inteenaas horta aniga nabadii nolol automatically waa ka tirsanahayo waa hal ku dhagay xisbi maaha waayo wasiir xukuumadda ka tirsanaa dhinac kale ah wasiir xukuumadda ka tirsan marka aan ahay xildhibaannimadeeduna waa ii gaar marka nabadii nolol xisbi maaha xisbi fulaan iyo nabadii nolol maanta xagga dhiga mucaaridi xagga dhiga waa la idinku kala qaybinayaa 276 baan nahay waxaana weheliye 54 intaasay saaran tahay dalka meeshii laga aadi lahaa maalin dhaweyd waxaan arkayay xildhibaano iyo senataro dhahaya madaxweynaha waxaan ka rabnaa meesha la aadaay oday baa waxaa la yiri duubweyna la dhahaa duubweyne wuxuu madaxa ku watay duub Soomaalida dhaqankeedu waa taqaanaan sahay lama qaadan jirin safar maalmo iyo habeenana waa la soo socon jiray odaygii duubweynaha ahaa baa wuxuu tagay reer buu ku hoyday habeenkii waa la soo dhaweeyay waa la sooray markii la sooray waxaa loo diray wuxuu sheegay meesha uu socdo way garanayaan waxay ahayd meel uu habeenka lagu sii hoyanaayo waa la baxay habeenkii subaxina waa la sagootiyay waxa la ogyahay meesha uu sii socdo caawa inuu hoyanaayo masaafada ay isu jirto meesha uu ka tagay iyo meesha uu hoyanaayo kala bar meesha uu ka soo tagay iyo meesha kala markay marayaan ayuu wuxuu soo xasuustay koofidii duubka ahayd awgi inuu ka soo tagay asoonba fiirin gadaal uu soo noqday meeshuu saaka ka soo baxo caawa tagay war maxaa kugu dhacay ma nabad qabtaa maxaa ku helay mayo duubkiyaan ka soo tagay wiir waxaa la yiri oo ma laba duubaa wadatay maya hal duubaan wato wiir yaa oo kan madaxa ku saaran markaas uu ogaan xildhibaanada iyo senatarada inta madaxweynaha la kulmaan ama ra'iisul wasaaraha la kulmo inta loo socdaa dhahaaya waxaan rabnaa marka maantay taagan tahay waxaa la rabaa talo iyo arrin dhaba mudana gudoomiye waa soo gunaanada hadalkayga waxaan rabaa in lagu soo gunaanado waxaan rabnaa talo aan meel ku saarno guddi madax bannaan oo baarlamaanka awoodiisa raba inuu maroorsado talo aan meel ku saarno ummadda waxa u danka ah talo aan nala ka sugayaa annagoo ah golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saasaa aqalka sarana nagu raaci doona haddii Allah awood leh ogolaado wuxuu yiri Allah u naxariistee maxamed xaashi dhamac gaariye tala maanta idana talo duu ka hari karo oo dalabta lagu saxo dala aan lahayn dulin tala aan la duri karin talo aan lahayn dulin talo aan la duri karin nabadoonka beeshii raacadada dulsaar ku ah tala maanta idana maanta idinka la idinka fadhiyaa muddo kororsi hore u dhacday duruufta haday keento waa la kororsanaya meel aad hadii la waayo waa la kordhinaya dadka miyaa isku wada shaati mani hore waxa maqlan jir shaatiyaal la isla tasho isla tolmayna waa kala tolanaynaa hadda inoo kala tawlan